nabadgeliyo in badan waxaynu ku mashquulnaa wax inaga saameyn qurxoon inoo ahayn yacni aan inoo wanaagsanayn waxaynu baraarugnaa goortaynu aragno qalad inagu dhacay haddana aanan waxba ka qaban karin waxaan jecelnahay riyadeena inay rumowdo inagoo wax howl ah qaban waxaan jecelnahay in la xushmeeyo inagoo aanan wanaagsanayn waxaynu iska dhignaa kuwa nacab waxyaabaha qaar inagoo waxaasii samaynayna waxaynu jecelnahay wax walba inaynu ku helno fadhiga aynu fadhino balse taa la diid oo dadka horeeyay baraahadaas wax ku heli waayeen waxaan ku leeyahay inta juhdi iyo dadaal aad bixiso ayaad hadhow ku nasan doontaa ninkii uu wax beertay wuxuu heli doonaa meel uu ku ilqaboobsado oo maskaxda ku dejiyo balse qofkii abuurtay geed qodxeed ma guran doona cambe laakiin waxa uu ku mashquuli doonaa ama waqtiga uu uga dhamaan doonaa sidii geedkaasi qodxeed uu asiga abuurtay uu jirkiisa uga saaray just legend guusha waxa ka xigay waa dadaal iyo juhdi inaad bixiso hankaaga ha ka sareeyo heer walba oo dadka limita ah adigoo milicsanay guulo wax ku ool ah adigoo iska dhiga qof cabqari inaad guulaysato adigay kugu xiran tahay inaan cabqari kugu yeerno adigay kugu xiran tahay qof baashal guul ku gaari ma jiro qof dheedheel iyo lacib guul ku gaari ma jiro qof aanan guusha u dhibtoon ma jiro just waa waqtigii mucjisanimada waa waqtigii isbedelka waa waqtigii guusha kani waa safarkeenii dheeraa ee is abuur waxaynu isla saaranahay hal doon waxaynu u wada soconaa hal meel oo guul ah waxaynu rajaynaynaa adduun iyo aakhiro inaynu liibaano waynu is abuurayna sida dhabta ah innaga is walaalsanayna innaga safarka iskuula jirna waxaynu diyaar u nahay qof walba inagu wehelinaya safarkaani inuu doonteena soo raaco sababtoo ah meesha aynu u socno iyo hanka aynu leenahay waa isku mid waa inaynu guulaysano adduun iyo aakhiro just we are mucjisooyin baan nahay waana ahaan doonaa insha Allah